gobolka Sool maanta wuxuu xaq u leeyahay jira qolooyin kale oo anaga meesha u badan lahaa shirkadooda kale la waan isku sharaxay maadaama xildhibaanada u badan leeyahay Sool lama oran karo masaalixda Soomaaliland bay ay dhax ka marayaan halkaas marka imikadan hadaba dadkii saabiriga qabiim kan waxay ku leeyihiin de nafsi baaba ka dhaqaajiyay ninkii meesha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراتها بوندا وديال ميلا جوجتانبا كسو دواada falanqeyn iyo barnaamij aanu toddobaadada iyo maalmaha soo socda aanu halkan idinkaga soo deyn doono idinkoo kala soconaya baraha bulshada akoonada aanu ku leenahay sida Facebook iyo sidoo kale YouTube waxaad kala soconaysaa dhinaca YouTube-ka waa Maxamed Muuse Banjid ama Banjid Production halkaas kala soconaysaa waa channel weyn sidoo kale waxaad la soconaysaan page-ka Warisaab Cabdi Goole oo aad kala soconaysaan muddooyinkii ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyay Somaliland waxa ka jira loolanka iyo gol orodka loogu jiro shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland sidii isku casilay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif loolankaas ayaa golaha wakiilada Somaliland ka socda iyadoo xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo dhan ba la oran karo hamba ka galay inay u tartamaan gudoomiyaha golaha wakiilada haddaba sidee u dhacaysa doorashadaasi yaa san la filanaya inay ku guuleystaan ama qofka la filayo inuu ku guuleysto doorashada shirgudoonka golaha wakiilada waxa ila falanqeyn doona saxafi sare Maxamed Muuse Banjid oo kamid ah saxafiyiinta iyo falanqeeyaasha dhinaca siyaasadda muddo dheer u soo joogay doorashooyinkii isaga dambeeyay ee shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland sida doorashadii dhacday 2005 oo kale shirgudoonkii lagu doortay dhacdooyinkaas soo dhaceen mudane Maxamed Muuse Banjid saxafi sare ee soo dhawow bal bulshada reer Somaliland ay ku daawanaysa iyo bulshada Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha ku daawanaysa bal waxaad u iftiimsaa shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland bal horta kursiga waa kursi noocee aad iyo aad baad mahadsan tahay Suhayb Cabdi Goole oo isaga laftigiisu muddooyinkii ugu dambeeyay wararka iyo warbixinada golaha wakiilada Somaliland noo qaabilsanaa oo nooga soo warramayay Suhayb horta arrimahan aad weydiisay waxay ka mid yihiin siyaasadaha kala duwan iyo maraaxilka kala gedisan ee uu hadba dalkan Jamhuuriyadda Somaliland wajaho ee uu ku jiro laakiin tan qodobkani waxa uu kaga duwan yahay qodobadii hore horta waa koowaade maalmihii ugu dambeeyay halhays muxuu ahaa hadalhaynta ugu faraha badan ayaa baraha haday tahay baraha bulshada iyo meelaha ay bulshadu ku kulmaan ee kulmista sida meheradaha dalka oo kale qaaxyaha oo kale hoteelada oo kale waaweyn waxa lagu hadlayaa waa issue-gan waa arrintan horta way soo jiitamaysaa kursigan awoodiisa horta awoodiisu waa awood kamid ah tiirarka dawladnimo waxa la isku yiraahdaa baarlamaan waa labada gole ee guurtida iyo wakiilada waa sharci dejintii marka executive waxa kala hadla waa muxuu hayay waxa la yiraahdaa golaha sharci dejinta golaha fulinta iyo golaha garsoorka ama cadaaladda saddexdaas qaybta afraadna waa inagoo waxa la yiraahdaa waa qolada saxaafadda ama warbaahinta marka intaasiba waxay wadaan oo dhan warbaahintu way ku wajahantahay iyadu marka doorka ay ku leedahay waa faafinta togan ama taban iyo hadba sayde uga qayb qaadato inkastoo de nolol maalmeedka caadiga ah ee bulshada Soomaaliyeed maadaama ay oral society ama dad hadal ay yihiin waxa weeye wararka aad iyo aad baa la isla dhaxmarayo Soomaalidu marka ugu horeysay soo kala hadaba waxay tiraahdaa maxaad ku barideen iyo maxaad sheegteen waa war un baa loo baahan yahay halka dalalka kale caalamka laga yaabo qofku inaan wax dhacay aanu aad u ogeyn oo shaqadiisa uu ku mashquulsan yahay arrimo kale marka horta Soomaalidu waqtiga dadku way akhriyaan wax bay qoraan caalamka kale laakiin Soomaalidu inta fara badan qoraalka imka bay bilow tahay Suhaybo hadii aan u soo noqdo qodobkan horta golaha wakiiladu maanta waa sidee xaaladiisu waa sidee maxaa ku gadaaman golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaynu ogeyn doorashooyinkii isku sidkanaa ee dhawaanta dalka ka dhacay markii ay qabsoomeen kadib waxa dhacay loolan baa loo galay kursigan horta deegaan ahaan marka la eego gobolka Sool ayaa muxuu hayay ay muuqataa inay yihiin halka kaliya ee ay tahay in de golihii dalkii Somaliland maadaama ay yihiin dad reer Somaliland
oo citizenisa oo qofka gobolka Sool iyo gobolka Maroodi Jeex ama magaalada Laascaanood iyo magaalada Hargeysa waa laba magaalo oo isku dal ku yaala xaq waxay u leeyihiin inay waxay hesho ay helaan dadkooda iyo deegaankooda haddaba aynu nimaadno gobolka Soole maxay tahay sababta ay in indha gaara lagu eega ay tahay waxa weeye gobolkii Sool horta dee dad kastaaba waxay leeyihiin qorshayaal rabitaano doonis xaqna way u leeyihiin marka gobolka Sool maanta intan iyo in ka badanba aragti ahaan anigu saan u arkay markaad bulshada xitaa la sheekaysato ee ka soo jeeday deegaankii inta deeg muxuu ahaayay garnaqsigoodu muhiimka yahay waxay ku soo bandhigayaan in gobolkii Sool aad arkayso Suhaybo waxay ku dhex geynayaan meel ay ka jiraan duruufo kala duwan oo u baahan gacan qabasho marka taa laftigeeda Somaliland horta bari iyo galbeed iyo bartamaha midnaba ma kala laha oo Somaliland waa Somaliland laakiin halkeeba hooseysa halkeeba sareysa halkeeba gacan qabad u baahan horta waa sida macnuhu maaha dadka qaarkood waxay markaad la sheekaysato koodhan imika waqti xaadirkan de qof kasta oo golaha wakiilada kamid wuxuu xaq u leeyahay inuu isu sharaxo shir gudoonka ama uu noqdo gudoomiyaha waa run oo taadee dastuurka Somaliland uu dhigaya in laakiin haddana hab qaybsigii saamigii dastuurka laftigiisu uu dhigaya oo dadka reer Somaliland imika tusaalaan ku sheegaya aqliga saxa miyuu ogolaanaya laba qof oo walaala ah tusaalaan ku sheegay tusaalahan inay noqdaan wasiir iyo wasiir ku xigeen dastuurku wuu ogol yahay laakiin de haddana maxaa isdiidadii waa in dadkii kala dahaahe way dhacday waqtiyada qaarkood oo xilliyadii dawladihii hore way dhacday dawladda macnaha in dad isku family ay noqdaan golaha wasiirada oo kale laakiin taa ay masaalixda bulshada ayaa keenaya waqtigan xaadirkan marka horta dadka ku nool gobolka Sool iyagana waxba xaq loogu leeyahay iyaguna waxba xaq u leeyahay tani marka waa xaq u lahayn tan oo kale imika tusaalan ku sheegaya inay iska dhaxarkaan awood qaybsiga dawladda ama Somaliland xaq bay u leeyihiin iyagana waxa xaq loogu leeyahay inay ka qayb qaataan wada lahaanshihii iyo wax qaybsigii Somaliland ma fahamtay waxa kale oo ay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarashadii asaasiga ahayd dhammaanba duruufaha ku gadaaman oo dhan iyo dhibaatooyinka ay tirsanayaan macquulka de waxa loo baahan yahay wax ka qabashadii gacanta wax laga qaban lahaa wixii aan macquul ahayn horta tirada kuma darin oo taas waa arrin kale waa issue kale oo cideeda ka jawaabaysa laakiin waxaan sheegayaa golahii wakiilada marka nimanka ku soo noqono horta iyagu siday doonaanba ha kala dhigaan laakiin waxa jira deegaanka la yiraahdo gobolka Sool Laascaanood oo kale dad waxa jira de isku haybta marka la eego laftigeeda la yiraahdo de magac gaar leeyin cid waliba de magacyo way kala leedahay de Ilaahay ba quraankiisa ku sheegay oo isku la taarufud de waa ayad quraana marka hayb ahaan horta hadii aan laftigeeda aan waxba af ka dhawro de harti waxa la yiraahdo xaq waxay u leeyihiin inay dawladii xoog isaga dhaxarkaan waayo imika waxa laga yaabaa tusaale ahaan gobolka Awdal oo kale madaxweynaha uu soo maray madaxweyne ku xigeen badan buu soo maray iyaga laftigooda xaq waxbay u leeyihiin waxa laga yaabaa waxbay tirsanayaan waxa laga yaabaa hadii la yimaado beesha dhexe oo dadku tilmaamaan inay iyada laftigeedii wax tirsanayso oo ay laakiin haddana iyada de kulliba waxa sida iyagii oo kale oo la isku miisaalayo ta kale haddaba halkeeba ugu ay tahay maanta in diiradda xoog loo saaro weeyo su'aashu marka halka xoog loo saarayo waxa weeye gobolka Sool maanta aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sidaynu ognahay wuxuu hadal uu qabtay ka sheegay in uu waqtigii hore intaan Cabdirasaaq Khaliif noqon gudoomiyaha wakiilada ayo golaha wakiilada wuxuu sheegay inuu dhisayo shakhsi ka soo jeeda oo maraaxil kala duwan iyo duruufo kala gedisan oo Somaliland inta dhowr iyo 30 sano ay jirtayba la soo kifaaxay la soo daala dhacay waxa weeyeen muxuu haayay hadda soo ka weydiiyay maxaad soo ma oran karo nasiibaba faratoon ku socday kursiga dadka qaarkood sida aad u dhigtay si yar oo ka duwan baabay u dhigayaan waxay ku leeyihiin
horta cabdirasaaq khaliif duruufihii doonaabaha ka saaraan meeshii ha kaxeeyaan oo taasi waa arrin siyaasi oo kale laakiin waxaan sheegayaa maalintii la dooranayay horta waxaa jira qoyskan uu ka soo jeedo faratoon waxaa laga yaabaa xiir oo kale faarax inuu ka sii dambeeyo yaasiin maxamed xiir farato faarax cabdirasaaq khaliifna waa faarax faamiligaas oo kale waa isku reer baa waa family waa isku qoys dadka qaar waqtigaa waxay lahaayeen cabdirasaaq malaha waxaa kaga yara qurux badan inuu dib uga baxo maadaama uu adeerkii meesha marayo oo uu isaga laftigiisu dhiso marka imikadan haddaba dadkii saabirigaa qabay imikana waxay ku leeyihin dee nabsi baaba ka dhaqaajiyeyba ninkii meesha oo ninkanaa xaq u lahaa ee kada marka haddaba waayey maanta waalidnimada xaq u lahaa soo soo haayo waxay tahay qofka imika waxaan kuu sheegayaa ragga uu ka mid yahay isaga iyo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyiga Suleymaan Yuusuf Cali Kore waa ragga dhiigooda ay inta badan ay raacday Soomaalilandnimadu waa ragga ay tahay in la garab istaago waa ragga markasta iyagu gobolka Sool wax la jecel laakiin haddana waxa laga yaabaa sidoo isaguba sheegay wasiirka warfaafinta wuxuu yidhi aragti ahaan waa lagu kala duwanaan karaayo waa laga yaabaa dee nimay tol yihiin inuu aragti si kale wax u arkayo laakiin dee kulleyba dagaalku xal maaha sidoo isagu sheegay marka dee ay tahayna sidoo sheego kaliya ma siday tahay marnaba dagaalka iyo qorigu xal ma noqdo ee wada hadalladu oo Suleymaan Yuusuf Cali Kore uu aad ugu celceliyay waxay tahay waa muhiim madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhowr jeer uu sheegay intii aanu dagaalkan dhicin wasiirro fara badan oo reer Soomaaliland oo dhinac walba reer Soomaaliland markaan leeyahay iima kala aha bari iyo galbeed waa meel kasta oo xadka Soomaaliland uu maro haddaba maanta haddii aan ku soo dhawaado muhiimadda dad fara badan baa waxa hadlay indhaydho xildhibaanka oo uu hadlay waxa uu ka tirsan yahay golaha guurtida Soomaaliland muddo dheer hadalladiisi bay dadka qaar si yaroo kale oo aanay dee baytul qasiidkii fahmin macnaha wuxuu ku hadlayaa isagu afka dee xildhibaan kasta oo golaha wakiilada baarlamaanka ka tirsan dee reer buu matalaa dee ninku inuu reerkiisii si positive u matalo waa wax meesha ku jirta oo waxay xaq u leeyihiin inuu doono oo dee waddo saxa u doono imika aniga maanta tusaale ahaan haddaan iska soo qaado dee reerka iyagu hadday wax tabanayaan maaha inaan dee qori la soo qaato oon idhaahdo laakiin waa inaan u doono oon miis walba imika Soomaaliland soo aqoonsi xaq uma laha ka war haddaynu qori ku doonno aynu idhaahno caalamka oo dhan baan anagu hub ku ridaynaayo laakiin waa inaad wada hadallo iyo soomaha marka horta taasi waa taa indha wuxuu ka hadlay qodob maanta taagan oo ah hadalkiisii intaan aan ka daba tago Suhaybo oo adaaba ka mid ahaa dadkii markii dhaweyd waad intaynaan stuudiyaha soo gelin wada xasuusay marka xildhibaan indha hadalkiisii haddii aan adkeeyo anigu waan muxuu ahaayey Soomaaliland oo lix jira baan difaaca anigoo lixdan jira baa haddii ay dhacdo sidaas macnaha maaha waxay dadka qaar waxay leeyihiin hadalkani dee hadal qaawan dee runtii marka lagu soo dhawaado gobolka Sool maanta wuxuu xaq u leeyahay gudoomiyaha golaha wakiilada inay noqdaan waa hadalkii kooban marka lagu soo dhawaado maxamed halka ku haystay waxa jira qolooyin kale oo anaga meesha u badan lahaa si guddoonka kale la waan isku sharaxay maadaama xildhibaanada u badan leeyahay Sool lama oran karo masaalixda Soomaaliland bay ay dhax ka marayaan halkaas horta dee annaga u badan haddii ay tahay hab dimuqraadiya oo dimuqraadigi waxa weeye dee annaga u badan haddii qabiil loo leeyahay horta waa qalad oo reer ahaan baanu saa ugu badannahay wax taasi macquula waa laga laba nin oo isku reera baa kala aragti duwan laakiin laba nin oo isku reer inay isku aragti noqdaan waanay dhici kartaa laakiin inuu gruubaysi noqdo oo reer ahaan la isku raaco dee ma qurux badna dimuqraadiyadiina meel bay kaga dhacaysaayo uma wanaagsana laakiin in laba qof oo aan isku reerba ahayn ama isku reeri ay kale fikir noqdaan laba aan isku reer ahayn isku fikir noqdaan dee waa habka dimuqraadiga loo yaqaan laakiin habka qabaligu wuxuu dhigayaa inuu dee annaga isku reera ay sheekadii ku socoto marka horta taas waxba ku sii fogaan mayno oo kullayba dee reer xildhibaan kasta oo golaha wakiilada ka tirsan hawsha u taala waxa weeye deegaankoodii iyo duruufihii ay ku muxuu ahaayey loo soo doortay in ay dee dib ugu noqdaan oo meelaha dhibaatadu ka taagantay waxay xukuumadda xaq ugu leeyihiin xukuumaddu waa fulintii inay dee miis walba garaacaan ay hordhigaan dalkii haddaba maanta gobolkii Sool waynu ognahay intii ugu dambeysay dagaalada ka socday waxaa ka socday dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay
dhinacay doontaba ha noqoto dagaalka adigu wuxuu ahaa dagaal dee cadowna soo dhex galay dee shacbigii reer Somaliland uun gudahoodii uun ahaa marka horta gobolka Sool arrintiisaasi maanta waxay u baahan tahay oo kursigan hadalkii indha aan anigu ku ayidayaan ku raacay waxa weeye in kursigan ay iyagu xaq u leeyihiin maanta marka marxaladda la yeeyo iyaga waliba waxay tahay kanoo kaliya kursigan oo kaliya maaha in xataa kuraas kale oo macnaha dee siyaasi ahoo dee looga badiyo waqtigan waayo iminka dadka qaarkood markaad la sheekaysato waxay ku leeyihiin gobolka Awdal oo kale dee waa deegaan ahaan waa Somaliland waxay soo mareen inay noqdaan madaxweynihii Daahir Riyaale ka ahayn intii ka dambeysay Daahir Riyaale laftigiisu xilligan cigaal wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen markii uu noqday Daahir Riyaale madaxweynahana dee wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka Axmed Yuusuf Yaasiin intaba waa la wada garanaya anigoon hoos ugu sii daadin imikana Axmed Yuusuf Yaasiin imikana waxa ay Cabdiraxmaan Saylic horta dadku markay wax tabanayaan iyagana uma qurux badna inay dagaal wax ku dhameyn karaan ama xoog lagu heli karo xagga kalena uma qurux badna qolada wax laga tabanayo ama cidda wax laga tabanayo markasta oo wax la tabanayo xukuumadba horta marka dawliga la eegayo dimuqraadiyadda xukuumadba wax laga tabdaa xukuumaddii waxa u yaala inay si wanaagsan u garwaaqsato ay dadka qanciso bulshadii waa bulshadeedii waa dadka ay xukumaysay waayo xukuumad ma noqonaysa hadana shacbi xukumayay imika deegaanka gobolka Sool siyaasiyiinta ka soo jeeda haye wadawgeed laba urur bay la soo baxay waay bulshada reer Somaliland aad bay u soo dhaway waxay lahaayeen imika Cabdirasaaq Taasho kale Taash ururkiisu soo baxay Somaliland baa taageerisay imika markuu iska casiray niyad jab Somaliland noqotay waa tahay soo lama oran karo marka siyaasiyiinta gobolka Sool laga hadlayo iyaga ayaaba qayb ka ah niyad jabinta bulshada horta Suhaybow mid baa meesha ku jirta hadalkaasi dee isagina wuxuu arkayaa in sabab baa keentay buu leeyahay laakiin anigu taan markii horeba carabka ku dhuftay aan sheegay waxa weeye in aan wax tabashadii loo marin wada qaldan qodobku waa taa wax waa la wada leeyahay qaladaadna wuu jiri karaa laakiin qaladaadkii jiri karay maxaa lagu sixi karaa waxa lagu sixi karaa qalin baa lagu sixi karaa wada hadal baa lagu sixi karaa hab dee togan baa laakiin laguma sixi karo hab taban oo dee dhibaato keeni kara imika waa meelaha dhibaatooyinka qaarkood ninkuna hal adayg inuu leeyahay maaha shayga lagu yiraahdo qarannimada ama dalnimada ama muwaadinimadu maaha wax labaclabac gala imika waxaan arkayay waxa waraysi laga qaaday wasiirkii hore ee caafimaadka xilligii Silaanyo xagla toosi Salebaan inankaas su'aasha uu weydiinay su'aalaha uu weydiinayo inankaas runtii su'aalo macquul ah ayuu weydiiyay wuxuu yiri waxay aad markii horena Somaliland ku ahayd maantana aad ku noqon weyday koo muuqdeen xilliga maxay yihiin maanta ka soo marka hadda kulli aniga jawaabtaas may noqon mid kaafida laakiin waxaan dareensanahay inay jiraan oo ma oranayo xaq waxay u leeyihiin hadal lagu duudsi karo xaq waxay u leeyihiin waxyaabo fara badan oo ay ka tabanayaan xukuumadda in la qabtana ay tahay loona qabto laakiin bal horta maanta ta lagu eegayo ee diiradda la saarayo lagu hayo waxa weeye doorashada qof shakhsi ka soo jeeda deegaanka gobolka Sool laakiin waxa aad loogu sii aad muxuu haye ay tayba in loo dhiso Yaasiin Xaaji Maxamed Xeer Faraton marka horta mid aynu isla meel dhigno gobolka Sool xaq ma u leeyahay iyo Faraton xaq ma u leeyahay waa kala laba Suhaybo intaana su'aasha weydiin aan ka galo gobolka Sool xaq ma u leeyahay kursiga golaha wakiilada ee banaan waqtigan gudoomiyaha golaha taasi ha laakiin Faraton xaq ma u leeyahay iyana waa baab siyaasi oo meesha yaala isdiidooyin fara badan oo aan jeclaysanin waqtigan aan hoos ugu dhaadhaco ayaa horta meesha yaala oo madaxweynaha Somaliland hore uu soo dhisay Faraton haatan haddana sida wararku sheegayaan meel kale ay tahay in haddana laga soo dhiso oo maalmihii ugu dambeeyay waxa la lahaa xisbiga ururka ka ayuu dee haddana xukuumaddii dhisideedii kama maydayn oo waqti xaadirkan way dhisaysaa waa sida wararka aynu ku helayno war jiraanada Soomaalidu waxay tahay cakaaru iman doona ama uu soo bixi doona it will come out in the wash marka su'aashan Yaasiin Maxamed Xeer Faraton oo saar sheegtay siyaasi weyn dalkan idinku muddo dheer soo shaqeynayay Soolon Somaliland kamid baahay buu isugu Somaliland imikana uu soo joogay waqtigan uu soo joogay way
ياسي فرط الحالة اللي مسؤول كتاج جودها مجال الله تعالى سين وجني صور ديك بتاعنا حسبه لا تعالى بك تاج حالة دي مجال الله تعالى كتير تحدي لا تصير جودهم كقولها وكيل هذا شدوا ما أنت شجعين ده والسؤال معقولة ما تمير يا عرفت أصلا ما والسؤال هرت سهيب وفهمي سؤال هذا هديان كتجواب وحوي فلك صومالي واحد ترى هذا فكلي فول مرة تا معناه هذا واحد نقص عذاب ياسين حاج محمد حر فرطان هرت الشخصي ها والدنيا أنا كذا لكن رجع كوه هلينيا محو هاي مال كستده قد بديه سو كله dadku markay ku sheegayaan oo kale de waa wasiirka wasaaradda warfaafinta Salibaan Yuusuf Cali Kore dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay u arkaan in maadaama uu inaga wasiirnimo yahay oo warfaafinta haysto barnaamijkan maaha barnaamij horta ay ciidinagu inagu kaliftay laakiin markaad ku soo dhawaato xeedhada gunteedii qofka de joogay u muuqata wasiirka wasaaradda warfaafintu waa nin gobolka soo la jecelinay horumaraan waa nin la jecelina weligiina la jeclaa waxaad ka garanaysaa laakiin dadka qaarkood intay muraayado kala xidhaan inay wax kala oo arkaan qof dantaadii wada inaad uba aragto inuu qof cadow kuga yahay because waxaad eegtaa qofku markuu nabadgelyo kugu soo jiidayo iyo markaad cadowtinimo iyo qori doonayso keebaad halkaaba ka qiyaas qaado waxa weeye kaafiye kala dheeri marka horta yaasiin xaaji maxamed xiir faratoon waa shakhsi bisil aan ku warramay waa shakhsi bisil suhaybo de taariikhuhu ay inaad soo gaadhay iyo in aniga laftigaygu aanan soo gaadhin oo aan dib u siday ama de aan ka daba tagay laakiin adigu de waqtigan meel kasta waad kala socon kartaa tan yaasiin xaaji maxamed xiir faratoon godkay gasho Somaliland uu joogay uu taagnaa uu ku sugnaa marka sababta loo leeyay maanta tii horena loo lahaa Cabdirasaaq Khaliif isaga uga xaq lahaa oo uga mudnaayahay maanta haddaba 82 xildhibaan ee golaha wakiilada marka laga reebo de shakhsiga la dooranayo kow waxay tahay gobolka Sool ma loogu jiraa golaha wakiilada ha jawaabtu waayo qofkii waa sharciyan waxay dhigaysaa inuu de golaha wakiilada kow ka tirsan yahay xubin yahay ma fahamtay haddii aanu kamid ahayn golaha waxaan oran lahayn de sidee cid kale loo amaamudayo ama loo saaburay golihii wakiilada oo de waqtigii doorashadii ugu dhaweyd ugu sidkan waxay ahayd tii ugu horeysay ee gobolka Sool ama de deegaanka cid degta ay ka qayb qaateen saafilayo xildhibaano codku 5 inay haayeen ha hey awal hore de si kale loo qiimeyn jiray marka maalinta ka dambaysa gobolka Sool de wuu soo horumarayay wuu soo talaabsanaya wuu soo imika laftigeeda walaal dagaaladu meel walba way ka dhacaan sida wasiirka wasaaradda warfaafinta uu sheegay maalintii ugu dambeysay dagaal wuu dhacay wuu soo dhacay wuu dhici doonaa wuu dhamaanay Hargeysa maalin bay taas ka taagnaa oo dagaal ka socday waanu dhamaaday waayo dagaalku marba wuxuu noqday ma taqaana dawo loo baahnaa marna wuxuu noqdaa qasaare marka horta istidooyin fara badan meesha horta way yaalaan cidina dagaalkan kuma faraxsana dhibaatada xagga taala xaggana way taalaan waana laga yaabaa qarax kale dadkii reesul ku leeyihiin magaalada ilaahay ba dagaalka ka saaray meesha horta waxa wararka qaarkood ay sheegayeen Suhaybo in dad aan jeclayn horumarka gobolka Sool imka maalmo dhaweed waynu arkaynay oo dad baa qaraxyo soo maleegay iyagii waa qaraxyo ku dhacay marka horta niyow dhibaatooyinka faraha badan cid ku tilmaami mayno ma oranayno cidaas asaa laakiin cidda xuni meel walba walaal way joogtaa waana soo baxaysa taas saasan kaga gudbaya golaha wakiiladu waqtigan horta arrinta hor taale u taalaaba waxa weeye in ay galaan guddoonka ay doortaan laakiin su'aal xubintana bal buuxinaya guddoonku saan filayo uu dooran yahay marka qofku hadduu halkiisii ka tago booskiisa laftigiisa loo tartamay isaga laftigiisa laakiin hadday noqoto in guddoomiyihii iyo kaliya boosishikiisa ay tahay hadalka indho ee uu ku hadlay inaa waxaasaanu xaq u leenahay hadal cad oo anigu aanan wax xanafo oo leeyahay aanan u arkayn Suhaybo ayuu ahaa bulshaduna maqlaysaa waayahay intaas waxa ku soo gabagabeynaya waraysiga kooban ee naga ka qaadanay saxafi sare falanqeeyay siyaasadeed Maxamed Muuse Bajiir oo runtii aan ku eegnay inta gooni maadaama bulshada reer Somaliland warkaynin wax ka dhaxsooda golaha wakiilada Somaliland bulshada loogu filaha aad iyo aad baad mahadsan tahay wariye daayar oo dadaal fara badan oo mustaqbal wanaagsan leh aad iyo aad baad mahadsantahay